بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. محمد عمر بان هاي warqadintuu sheegay waxna way ka jiraan. waxaan isku dayay inaan intaa isteersiyo insha Allah. qof kastoo inaga mid ah oo halkan ku sugan iyo qof kasta oo daqiiqada aynu ku jirno ku dhex jira qulqulka noloshu wuxuu mar walba u joogaa uu heegan u yahay, og yahayna inay ku dhici doonto kuna dhacday kuna dhacayso dib nuucay doontaba ha yeelatee. ma tahay mise maaha? ma tahay mise maaha? su-aashaan raba inaan ku bilaabo hadalkaygu waxa weeye, haddii adduunyada intaynu ku nool nahay dhibtu ay tahay waxaynu dhaxal u leenahay oo mar kasta ay nagu dhacayso aynaan marnabana ka badbaadayn, laba aragti unbuu ibni aadamku ku qaabilaa dhib kastoo dhaco. labada aragti midi waxa weeye in ibni aadamku dhibtaa ka cararo, geesinimadii uu ku wajihi lahaa uu ku xallin lahaana laga waayo, xalka ay dhibaatadaasi ku xallibtayna uu joogo inta nolosha uga hadhay. iyo xalka labaadoo ah in ibni aadamku intuu labadiisa lugood ku istaago uu idhaaho dhib yahay umaad iman, aniga iimaad iman si aad iila joogto ilal abad, laakiin waxaad iigu timiday si aad ii dhaafto. layli keliyaanad ii tahay inaan kaa faa'iidaysto oon kalsoonidayda iyo geesinimadayda iyo qofnimadayda iyo ahaanshahayga kugula tacaalaanad mudan tahay. labada aragtiyood wax u dhexeeya hadduu jiro qof ku qaabilo dhibku farta ha taaga fulaysa. mahadsanid. wakti aan haddii aan idinla kaftamo ku magacaabi karo 1900 iyo kabakayaaci ayuu qulqulka nolosha ku soo biiray wiil da'yar. markaan 1900 iyo kabakayaaci leeyahay, xasilooni iyo deganaansho iyo wadajir iyo wada socod iyo qarannimo iyo dawlad iyo nolol sugani ma jirin. dadku kabay ka cararayeen. macnaha guud dagaal baa socday. qof kasta wuxuu ku qalabaysnaa qori. hantida ugu weyn uu qofku xilligaa haystayna waxay ahayd qori, because wuxuu ku ilaaliyaa qorigaa hantidiisa ugu weyn oo ah naftiisa. kamaanay 1900 iyo kabakayaaci ahayn haa ama maya? haa soo maa. xilligaasuu ku soo biiray wiil da'yari nolosha. sidaad qiyaasi kartaan, dadku waxay nafla caadi iyo kadeed kula jiraan masiibooyinka iyo saamaynta uu keenayo dagaalka socdaaya. qof walba waxa ugu weyn uu rabaa waa badbaado iyo xasilooni iyo negi iyo inay marna baaq u noqon. wuxuu ka mid noqday ku ilaahay u sababay inay sii noolaadaan kana hadhaan wakhtigaa adagee socda. iskuul buu tegey. iskuulka uu tegey waad qiyaasaysaan mar dagaal laga soo kabtay qalabka iyo hantida iyo gacanta ku hayntu intay leekaanayso. waxyaabaha uu aadka u xasuusta uu iga warramay wiilkaasi waxaa ka mid ahaa inuu si fiican u xasuusan yahay macallin ardayda wejiga miiska u saara, farahana miiska u saara, kadib ul isticmaala inta badan. ardayduna marka galaas lagu jiro mar walba ay dareemaan jawi cabsi, ay ka baqaan macallinku inuu uleeyo. wuu koray. wuxuu la koray bulsho si guud caqligoogu aanu buuxin, aan inta badan ka fikirin samaha iyo dhinaca togan ee nolosha,
bulsho aan inta badan nasiib u helin duruufahay ku nool yihiin awgood inay helaan xirfado nololeed oo ay noloshooda ku maaraystaan kagana qaalib noqdaan ay kaga sarreeyaan wax kastoo noloshu soo hordhigto hayaankii ugu jiraan waxay rabaan helidooda. wuxuu la noolaaday xilli dhallinyarta aanay haysan jiho iyo tilmaanta keliya ay haysteen ay ahayd caqligooga. xilli ay dhallinyartu u nuglayd inay balwado iyo dagaallo iyo dib u dhac iyo halgaad noloshooda iyo dadkooga wax ku ah ay deriska gaarkay leeyihiin ay ahayd. wuxuu la soo noolaaday xilli ay dadku u nugul yihiin inay ku dhacaan xanuunno dareen iyo xanuunno maskaxeed mental and emotional health issues. wuxuu la soo darsay oo uu la soo noolaa bulshadii Ilaahay ka dhaliyey oo wax badan oo bulshooyinka caalamku ay haystaan aan haysan, laakiin haddana weli geesinimo ku nool taagan oo leh waana kan noloshana mar baan ka limin gaarina. markuu wiilkii koray ee uu weynaaday ee uu garaadaystay ee uu dareemay baahida caqli, baahida maskaxeed, baahida dareen iyo baahida jidheed iyo baahida iyo oonka aqooneed ee haya ay ficiisa dunida ku noolay helaan si fududna u helaan la'aanteedaas markuu ku koro ku weynaaday wuxuu isweydiiyey su-aashii aan idin weydiinaya hadda. waa tan dhibaatada aniga iyo masalada nolosheeda la hordhigay. ma waxay hor yaalla inaan aqbalo kuna istaago siday amrayso masaladan lay hordhigay, mise waxaan qaataa dariiq kale oo odhanaya sidaad adigu leedahay ma shaqaynayso, waxaa shaqaynaysa sidaan anigu leeyahay. kuwaasani ilaahay baa adduunka ay keensaday, wuxuuna ii ballan qaaday in doonistayda iyo hankayga uu igu arsaaqayo. ma rabo sidaad rabto inaan noqdo, ee waxaan rabaa sidaan rabo inaan noqdo. labadii khiyaar ama labadii doorasho wuxuu qaatay doorashada geesinimadu ku lamaan tahay ee caqliga iyo damiirka caafimaadka qaba ee ibni aadamku tilmaamayo, oo ah inaad labadaad lugood ku istaagto, wax walbana ku aqbasho siday yihiin, aamintana inaad tahay ka beddelaya siday noloshu u socoto. waa haddaad aaminsan tahay inaad karto aanad leedahay waxay qaadanaysay inaad samayso.